kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka janaalkeena runta wararka qodobada warkeena aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqon doona xaaladaha siyaasadeed ee dalka oo waqtiga kan xaalad adag galaya iyo farmaajo rooble oo hadda u muuqanaya in kulamo ay wada qaadan doonaan ayaan daawadayaal idinkugu soo gudbin doonaa iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo wada qorshe lagu heshiisiinayo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Maxamed Xuseen Rooble oo khilaafkoodu noqday kii ugu adkaa haddana bulshada Soomaaliyeed ay u dhagtaagayso waxa ka soo bixi doona kulamada siyaasadeed ee Muqdisho ka soconaya Amisom oo lagu wareejiyay ammaanka madaxtooyada iyo arrimaha oo hadda u muuqanaysa mid aad u adag iyo faahfaahin ka soo baxaya wararkii ugu dambeeyay ee shirka Muqdisho uga soconaya madaxda maamul goboleedyada dalka ayaan daawadayaal idinkugu soo gudbin doonaa. haddaba daawada haddii aad janaalkeena runta wararka ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka si la mid ah gambaleelka furo oo wararkeena like iyo share iyo comment-ga noogu dadaala aan ku bilaawo qodobka ugu horeeya. warka ugu weyn ee waqtiga kan jira ayaa waxa uu yahay in ciidamada nabad ilaalinta Amisom gebi ahaanba lagu wareejinayo ammaanka guud ee madaxtooyada Soomaaliya isla markaana amniga ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee waqtiga kan sugayaan. shirka wada tashiga qaran ayaa sii socon doona maalmo kale kadib markii madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Rooble ay isku raaci waayeen qodobka uu ra'iisul wasaaraha ka dalbaday in lagu wareejiyo arrimaha amniga guud ee dalka. laba maalmood ayaa ay socotay dooda qodobkani kadib hadda waxaa lagu ballamay in wada tashi hoose lala soo sameeyo iyadoona taasi u muuqanaysa in ay aad isbedelo kala duwan ay ka rajeynayaan sida ay sheegayaan xubno ka mid ah madaxda maamulada. markii ay adkaatay dooda qodobka la xiriira waxaa loo gudbiyay in mowduuca la jibiyo oo ay qayb kale waqtiga kan la qaatay. tusaale dhanka ra'iisul wasaaraha waxa keeneen dood ku saabsan sidii ay isku amniga guud ee madaxtooyada isla markaana gebi ahaanba waqtiga kan loogu wareejinayo ciidanka Amisom iyadoo golahu ay ka jawaabayaan walaacaasi arrimaha amniga miiska la keenay aragtida ciidanka Amisom lagu wareejiyay ammaanka guud ee madaxtooyada oo banaanka loo soo saaray dhammaanba ciidanka Soomaalida ee ah labada nin ee kala taabacsan. taasina waxay u muuqanaysaa in weji kale sheekadu ay yeelanayso in ciidankani Soomaalida ah la geeyo kontaroolada banaanka ah ayaa jirto dood sida wararka ay sheegayaan. dhanka kale ra'iisul wasaaraha ma diidin aragtidaasi laakiin lama oga in uu farmaajo aqbali doono in dhammaanba ciidamada Soomaalida laga saaro gudaha madaxtooyada Soomaaliya. waajibaadka Amisom waxaa ka mid ah in ay sugaan amniga madaxda dalka iyo sidoo kale xarumaha muhiimka ah. qodobka kale ee dooda amniga laga qaatay ayaa ah in guluhu ay soo jeediyeen in la bedelo taliyaha ciidamada xoogga dalka Odawaye Yuusuf Raage iyadoona laga heshiiyay in cidda lagu bedeli doono. qodobkani waa aragtida miiska taala laakiinse laguma dul shaqeynayo waqtiga kan xaadirka ah iyadoona Amisom ay u muuqanayso in ammaanka guud ee dalka waqtiga kan gacanta loo gelinayo. qodobadani waa dooda weli taagan ma ahan go'aanka maadaama la isku mari waayay qodobkii ahaa ra'iisul wasaare Rooble in amniga guud lagu wareejiyo waqtiga kan waxaana ay hadda u muuqanaysaa xaalad kasto in ay dhibaato fara badan ay dhici karto. sidoo kale waxaa la filinayaa amniga in go'aan laga gaaro si loogu gudbo qodobka kale ee doorashada la xiriirta. madaxda maamul goboleedyada dalka qaarkood ayaa waxay yihiin kuwo taageero cad waqtiga kan u muujinaya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya. haddana waxaa caqabadaha kala duwan ee waqtiga kan jira ay u muuqanayaan kuwo saameyn badan shacabka waqtiga kan ay ku yeelanayso. inkastoo dadka reer Muqdisho ay si gaar ah wax wali u hadalhayaan haddana dhibaatooyinka kala duwan ee waqtiga kan jira ayaa waxay u muuqanayaan in ay aad isbedel kala duwan ay doonayaan. dhanka kale taliyihii xilka laga qaaday ciidanka BSF-ta Puntland ayaa waxa uu qoranayaa askar cusub. taliyaha ciidanka BCF-ta Maxamuud Cismaan Diyaano ayaa sheegay in uu qoranayo ciidamo cusub xilli ay socoto waan ay wadaan isimada Puntland oo lagu xalinayo dagaalka ka dhacay magaalada Boosaaso. dhalinyaro fara badan ayaa hadda waxaa la sheegayaa inuu Maxamuud Diyaano uu waqtiga kan uu qortay taasi oo xataa laga cabsi qabo in mar kale dagaal weyn uu ka qarxo magaalada Boosaaso.
Genaraal Maxamuud Cismaan Diyaano ayaa sidoo kale shuruudaha lagu rabo qofkii daneynaya inuu ka mid yahay shahaadada dugsiga sare in leeyahay inuusan lahayn wax balwad ah isla markaana uu yahay mid da'yar ah waqtiga kan u diyaarsan sidii uu Puntland u difaaci lahaa. Tanina waxay u muuqanaysaa in culeysyada waqtiga kan Puntland ka jira ay noqon karaan kuwo aad u fara badan oo saameyn badan bulshada ay ku yeelanayso maalinba maalinta ka dambeysa. Puntland ayaa waxay galaysaa xaalad adag. Ciidamadani oo Maxamuud Cismaan Diyaano uu qoranaya ayaana u muuqan kara in ay dhibaato fara badan ay geli karaan guud ahaan deegaanada maamulka Puntland. Deegaanada maamulka Puntland ayaa waxa ay u muuqanayaan mid hadda dhibaato fara badan ay ka jiraan, inkastoo ay aad saameyn badan ay u taagan yihiin mararka qaarkood. Wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in xaaladaha kala duwan ee waqtiga kan jira ay u muuqanayaan kuwo saameyn badan bulshada ay ku yeelanaya. Sidoo kale Qaramada Midoobay ayaa waxay si cad u sheegtay in waqtiga kan loo baahan yahay in xaaladaha dalka ka jiro si gaar ah looga fikiro. Madaxda maamul goboleedyada ee Muqdisho ku sugan ayaa waxay u muuqanayaan kuwo natiijo la'aan ah, iyadoona maalinba maalinta ka dambeysa dhibaatooyinka doorashada ay u muuqato in dib u dhac weyn uu ku imaanayo. Hase ahaatee, qof walba ayaa hadaleyso xaalad kasta oo jirta sida looga gudbi lahaa. Dhanka kale, magaalada Beledweyne wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo aad u fara badan ay soo galeen gudaha magaalada Beledweyne, waxaana laga cabsi qabaa in saacad waliba dagaal toos ah uu ka dhaco magaaladaasi. Wararkii ugu dambeeyay ka imaanaya magaalada Beledweyne ayaa waxay sheegayaan in Genaraal Xuud iyo askartiisa ay heegan ku jiraan, waxaana laga cabsi qabaa in dagaal toos ah uu ka dhaco magaalada Beledweyne. Magaalada Beledweyne ayaa maalmahan waxay la circiraysay dagaal, iyadoona ay hadda xaalad adag ay ku jirto magaaladaasi. Walow bulshada ku nool qaybo ka mid ah magaalada Beledweyne ay cabsi ballaaran ay ka muujinayaan xaaladaha kala duwan ee waqtiga kan jira, inkastoo qof walba ay la socoto dhibaatooyinka kala duwan ee waqtiga kan xaadirka ka jira magaaladaasi. Genaraal Xuud iyo askartiisa ayaa waxa ay rabaan inay awood ay wax waliba kula wareegaan, isla markaana ay ka soo horjeestaan mar waliba go'aanka hogaamiyaha guud ee maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen. Genaraal Xuud ayaana horey waxa ugu dhawaaqay askar ka dhan ah Cali Guudlaawe, isla markaana si la mid ah maamul cusub oo ku dhawaaqay, isagoona maamulkaasi sheegay in uu yahay maamul goboleed aad uga soo horjeeda madaxweynaha maamulkaasi Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen. Cali Guudlaawe Xuseen ayaa waxay tani ku noqotay caqabada ugu weyn ee waqtiga kan haysata, iyadoona maamulka Hiiraan State uu ku dhawaaqay Genaraal Xuud uu yahay maamul ay taageerayaan dadka ku nool magaalada Beledweyne. Odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa horey waxay u sheegeen inay wax waliba ay ka fikiri doonaan, isla markaana xaalad kasto la xallin doono. Farmaajo iyo Rooble ayaa lagu wadaa in heshiiska madambeysa ay wada gaaraan. Maxamed Xuseen Rooble, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, iyo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa khilaaf xoogan uu ka dhaxeeya, iyadoona hadda la doonayay in khilaafkooda gebi ahaanba la xalliyo. Tani ayaana waxay u muuqanaysaa in khilaafka Rooble iyo Farmaajo ay si gaar ah hadda u doonayaan inay xalliyaan madaxda maamul goboleedyada qaar: Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, Siciid Cabdulaahi Dani iyo Cabdicasiis Lafta Gareen iyo Cali Guudlaawe ayaa waxay go'aankooda ugu dambeeyay ay sheegeen in hadda gebi ahaanba wax waliba caqabada ah oo jira la xallin doono, isla markaana tallaabo kasta muhiim ay u tahay shacabka Soomaaliyeed. Sida ay sheegeen mas'uuliyiintani ka tirsan Hirshabelle ayaa sidoo kale ka mid ah in ay wax kasta ay xaliyaan. Mas'uuliyiinta Hirshabelle ayaa waxa ay horey u sheegeen in madaxweynaha maamulka Hirshabelle looga baahan yahay inuu mowqif cad siyaasadda Soomaaliya uu ka ciyaaro. Hase ahaatee, madaxdani maamul goboleedyada ee Muqdisho ku sugan ayaa hadda waxay u muuqanayaan in rajadooda ugu weyn ay tahay in wax waliba ay xalliyaan, khilaaf walibana ay ka hortagaan. Guud ahaan daawadayaal, warkii oo aad ka daawanayseen Runta Wararka. Daawadayaal, waan intaa daba daawada. Haddii aad janaalkeena ku cusub tahay, subscribe noo saar, like, share, commentigaagana waa muhiim. Waad ku mahadsantahay daawashada warka janaalkeena Runta Wararka.